Assalaamu calaykum caruurey. Maanta sheeko cusub ayaan baranaynaa. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa Cali Beenaale. Sidan aynu ku bilaabanaysaa sheekada. Waa hore ayaa waxaa jiri jiray wiil yar oo qowsaar ah. Wuxuuna u shaqayn jiray suldaanka magaaladii uu ku noolaa oo maalin walbo ariga iyo lo'da u wadi jiray duurka. Duurkaas aan ka fogeyn magaaladii ay deganaan jireen si ay xoolaha u soo daaqaan. Wiilkii ayaa ku caajisay shaqadan oo maalin walba uu qabto aan xiisaha lahayn. Qof aan la sheekaysto ma lahan. Wax xiiso leh oo aan meeshan ka socdana ma jiro ayuu naftiisa kula hadlay. Ushii yarayd oo xoolaha uu ku raaci jiray inuu warwareejiyo ama inuu xoolaha u fooriyo ma ahee wax kale ma lahan ayuu ku gunuunacay wiilkii. Maalin ayaa isagoo meel fadhi oo iyadoo meesha daaqaya iska daawanaya ayaa fikrad ku soo dhacday. Wuxuuna yidhi, wallaahi maanta aniga aqaan arrin aad u xiiso badan ayaan samayn doonaa. Wuxuu soo xasuustay suldaankii uu u shaqayn jiray talo uu maalin sii oo ahayd haddii uu arko waraabe ama dhurwaa inuu soo qayliyo si loogu soo gurmado oo xoolaha loogu badbaadiyo waraabaha ama dhurwaaga. Markaas ayaa wuxuu yidhi, haddaan afka furto aan ku qayliyo war soo ordaay, xoolihiina waraabe ayaa dhameeyey, dadkii xaafadda deganaa oo dhan ayaa iisoo wada bixi doona, anigana qosol iyo baashaal ayaan ka dhargi doonaa markay soo wada baxaan ayagoo ordaaya. Markaas ayuu istaagay isagoo wax waraabo ah aan arkin. Markaasuu ku qayliyey, war soo ordaay, xoolihii waraabe ayaa dhameeyey, kasoo gaara xoolihiina. Hal mar ayaa waxaa soo wada orday dadkii deegaanka deganaa oo shaqadii ay ku jireen kasoo wada tagay oo qof walba uu soo qaatay waxay hub u heli karo. Dadka qaar ulo ayay wateen, dadka qaar yaambooyin ayay soo qaateen, kuwa qaar dhagxaan ayay soo qaateen. Markii meesha ay yimaadeen ayaa waxaa ku qoslay wiilkii yaraa. Dhulka ayuuna galaangashay isagoo ilin ay kasoo baxday qosol dartiisa, isagoo ku faraxsanaa sida uu dadka ugu cayaaray. Dhowr maalin kadib ayaa isla sidii ayuu sameeyey, isagoo ku qaylinaya war waraabo ayaa soo orday, xoolihiina kasoo gaara ee soo ordaay. Dadkiina isla sidii ay ugu soo gurmadeen. Maalintii labaad way ugu soo qaldameen beentii wiilkii yaraa. Maalintii kale goor fiidkii ah oo qoraxda ay dhici rabtay ayaa ishiisa wiilkii waxay qabatay wax hoos ama humaag waraabo ah. Waraabahaas oo ku soo gabanayay geedaha mid ka mid ah. Waraabihii ayaa hal mar soo booday oo bilaabay inuu bursado idihii. Wiilkii yara ayaa orod ku dhuftay, afkiisana furtay, alla waa waraabe, xoolihiina waa dhammaadeen, maanta war ka soo gaara, war waraabaha wuxuu cuni rabaa xoolihii oo dhan, soo ordaay ayuu ku qayliyey. Laakiin dadkii magaalada deganaa oo beentiisa hore ogaa ayaa iska dhega tiray qayladiisa, waxayna dhaheen alla waa cunugii yaraa ee beenta badnaa ee naga dhaafay warkiisa. Waraabihiina sidii ayuu ku cunay idihii oo eber ka dhigay. Wiilkii yaraa ayaa maalintaas wuxuu bartay cashir qaraar, taasoo ah in beentaada hore ay disho ama dhibaato ay gaarsiiso runtaada dambe. Haddii dadka ay kugu bartaan inaad beenaalo tahay, qofku aaminaya ma jiro mar dambe xitaa haddii run aad sheegaysid. Islaamkana wuxuu noo sheegay in qofkii been shaqo ka dhigta oo laazima in xumaan oo dhan ay u furayso ilaa qofka markii dambe ilaahay agtiisa loogu qoro inuu beenaale yahay. Dhibaato taas ka weyn maa jirta in ilaahay agtiisa lagugu qoro ninkaas waa beenaale. Ee caruurey, beenta ha la iska ilaaliyo, been yaan la sheegin. Xitaa saaxiibada iskuulka aa isla dhigatiin ama dugsiga aa isla aadiin, been yaan loo sheegin. Qofkii waxaa ka samaysid runta u sheeg, taas ayaa ka fiican in ilaahay agtiisa beenaale lagugu qoro. Sheekadan halkan ay noogu eg tahay. Ilaa sheekada aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullah.